mahadsantahay aniga magacaygu waa Cabdiqaadir Faarax Shaaciye waxaan ahay xildhibaan golaha baarlamaanka ee dowladda Puntland sanadkii horeeto dowladdii horeeto waxaan ahaa wasiir haddana waxaan ahay xildhibaan aniga taytarkaygu waa kaas xildhibaan waxaan joognaa deegaanka Daarusalaam oo ku tirsan degmada Galdogob ee gobolka Mudug warbaahinta social media waxa ay rabtaan inay ka wareysato deegaankan taariikhdiisa maadaama uu yahay deegaan taariikhi ah maanta aan ku aragnay meel aad caan u ah yani oo wadooyin aan ka jirin deegaanada kala Puntland oo Tombalem ah oo dhowr inuu ahaa highway ah ee ka dhisan yihiin marka waxaan rabaa adoo noo soo koobayo wadooyinkan iyo qaabka loo dhisay iyo taariikhda muxuu ahaa deegaanka ina information naga siisay adar waa mahadsantahay maanta waxaan joognaa magaalada Daarusalaam oo ka tirsan gobolka Mudug degmada Galdogob xuduudda Itoobiya waxay noo jirtaa 2 kiiloomitir qiyaas ahaan maantay arinta aan u nimid magaalada tan waxa weeye waxaanu bilaabanaysay shaqadii maxjarka xoolaha ee deegaankan loo qorsheeyay 5 sano ka hor ay u qorshaysay African Development Bank mashruuca la yiraahdo adkaysiga abaaraha marka arintaas aanu maanta halkan u nimid haddaan ku dulmaro taariikhda magaaladan waxaa la aasaasay 13 sano ka hor 2009 2009 baa la aasaasay waxaa aasaasay dadka deegaankan degan community-ga hadda degan oo intooda badan ay ahayd deganeyd xuduudda Itoobiya ee dhinaca Itoobiya dabadeedna waxaa loo baahday in loo helo access ama maxaan ku iraahdaa waxyaalaha daruuriga ah ee bulshada u baahan tahay sida iskuulada biyaha maxaan ku iraahdaa ganacsiga in maxaan ku iraahdaa ay u helaan access u furan deegaamada kale ee Puntland ee dawladnimada iyo wixii la mid ah dad dhalinyaro baa aasaasay oo reeyay shaqo fiican ka qabtay waqtigaas kadibna community-gi way soo raacday oo aad baa loo soo degay maantayto waxay magaalada tan u leedahay wax kasta oo magaalo leedahay waxa ku jira biyihii waxa ku jira nalkii waxa ku jira telecommunication-kii waxa ku jira ka furan iskooladii dugsi hoose ilaa dugsi sare iyaan dhaweyd halkan waxa laga furay college oo ayagana dad dhalinyaro ah ay fureen waxaan rajaynaynaa sida magaaladan u korayso inay u sii korto dawladda Puntland iyo dadka Soomaaliyeedna waxaanu ka rajaynaynaa inay arintaas qayb ka qaataan haddii Ilaahay idmo annaguna waa dadaalaynaa magaalada taariikhdeedu intaa weeyaadeer xildhibaan aad baa u mahadsantahay taariikhda deegaanka Daarusalaam waa taariikh aad ballaaran waqti yar oo kooban deegaanka uu dhisan yahay deegaankan waxa uu caan ku yahay xoolaha iyo waliba geed loo yaqaan yucta oo dhulkan aad u caan u yahay maantana waxa la dhagax dhigay mashruuc aad ballaaran oo Puntland iyo hay'adda muxuu Save the Children iyo dadka deegaanku waxa weeye Suudaanka iyo adiga xildhibaankii deegaanka ahba qayb ka ahaydeen deegaankan mashruuca saaka la dhagax dhigay muxuu ka bedelayaa aad baa mahadsantahay wuxuu ka bedelayaa halkan area-dan aan ku noolahay meesha hadda aan joogno Daarusalaam waxaan is leeyahay waxay ka mid tahay meelaha haddaysan ba ahayn midda ugu badan meelaha ugu xoolaha badan deegaamada Puntland kaliya ma ahan xoolaha intaan area-dan ka dhow xoolaha xataa Itoobiya ka yimaada ayaa halkan imaanaya waxaanu is leenahay mashruucan wuxuu ahaa mashruuc baahi loo qabay oo daruuri ahaa oo waxaan rajaynaynaa dadka halkan degan bulshada halkan degan inay sida loogu talagalay ka faa'iideysto mashruuca waxa weeye mashruuc loogu talagalay waxa la yiraahdaa magaciisa drought resilience program oo macnaheedu yahay oo adkaysiga abaaraha sidaan hore u sheegayna waxa lacagtiisa bixiyay African Development Bank waxa la soo mariyay hay'adda Save the Children oo ah hay'adii sameeynay implementation-ka ama maxaan ku iraahdaa inay mashruuca dhaqan geliso waxa la siiyay contractiga dad qandaraasla oo Soomaali ah dadkaasna waxay ku shaqayn doonaan sidii mashruuca loogu talagalay design-kii
oo African Development Bank iyo IGAD oo iyaguna focal point ka ah ay ugu tala galeen ayuu ku shaqeeyay qandaraaskaas ku shaqeyn doona hadii la haydmo sida aad sheegtayba deegaankan wuxuu caan ku yahay miraha la yahay cufka oo dhinaca Puntland areadan caan ku tahay waxaan is leeyahay 80% areada u dhow Dar es Salaam ayay cuftaas ka baxdaa dadka deegaankaanuna arinta aad bay uga faa'iideystaan waqtiga cufku baxo oo maxaan ku yiraahdaa waa miro dabiici oo dadka qaar kood aaminsan yihiin inay yihiin miro u roon caafimaadka bini'aadanka xooluhuna sidii aan ku sheegay aad iyo aad bay u xoolo badan tahay halka kan imandoo ay magaalo tahay oo tuulo weynaata ay tahay haddana dadka deegan intooda badan waxay ku nool yihiin xoolaha nool oo waxa laga yaabaa in areadeeda agagaarkeeda oo dhan hadda tagtid aad ka helaysid xoolo kasta oo areadan ku nool waa maasanta xildhibaana ugu dambeyntii su'aasha ugu dambaysa aan ku weydiinayay waxa weeye saaka inta aan deegaanka joognay waxa aragnay taalooyin ay ku qoran yihiin qoys Soomaali caan ka ahaa ama calanka Soomaaliya dadkii hindisay kamid ahaa ma deegaanka uu magac daray mase dad gaar ah waxa weeye magacaas meesha ku qoray wararka ku qoran deegaanka waa maasanta deegaankan waxa ka yimid dad taariikh u leh Soomaaliya Soomaaliya laga yaqaano waxa ka yimid Allah u naxariistee ninkii hindisay calanka Soomaaliya ay maanta ay haysato oo buluuga Allah u naxariistee Maxamed Cawaale Liibaan waxa ka yimid generaal caana oo horumarka Soomaaliya wax ka soo qabtay generaal Cabdullaahi Maxamuud Xasan tukade loo yaqaano laakiin iska naynaas ay tahay waxa ka yimid generaal Aadan Xirsi Bile oo dad badan u yaqaanaan oo nin booliiska Soomaaliya caan ku ahaa waxa ka yimid nin madax ahaan jiray muddo dheer oo la yiraahdo Cabdi Maamuus dadkaas oo dhan deegaankan ay ka yimaadeen waxay originally dad halkaan ka yimid bay ahaayeen arinta aad sheegaysid oo calanka lagu sawiray meesha iyo magaca Cawaalana waa sax waa Maxamed Cawaale Liibaan oo taariikh dheer ku leh Soomaaliya aad baan kaaga mahadnaqaynaa Koshi Media iyo wareysiga khaaska ah oo aan siisay xildhibaan